xalay saq dhexe muqdisho waxa ka dhacay mid kamid ah hoteelada xaflad ka jiray wax laga argagaxa ay ahaayeen gabadha hadda halka kaaga muuqato ee cajirkeeda dhinac soo qawsatay Soomaali iskuma aragto gabar Sacuudiyaan ah ee isku aragtaa waa tan ayadoo ka hadlayso make up Arab tima Arab dar Arab iftino Arab wada jira wada Arab Arabtan amal inta waxaaba kaaga daran midda kale halka ka muuqato rag baa ku hareereysan waxa ay sameeynaysan ana xitaa ma ku sharixi kari adiga sharaxdaan ku dhaanay ina iga si af xunta laga yaaba laakiin anigu afkayga sooma qaban karo sidaas ayuu ku hor sameeynaysaa inta ku beesan ekaanin mar kale muuqaal kale waxaan arkaa qof kale oo sidaas oo qeybi ugu muhiimsanaa jirkeeda soo bandhigayso yacni misgadaysa xayisiinaysa I don't know ma garan karo laakiin commentiga maxaa u yaala ma garanaysaa wax kale ma u yaalaan tan madax kamaris ma ahane dhaqasho ma lahan yacni xaas in laga dhigto uma qalanto waay ma isqiimad dishay walaashay mase qiime isku yeeshay jawaabta adaa ku daayay salaadii iigu horeysay aan tukada xabsiga dhaxan ku tukada waana salaadii iigu fadliga badneed waa salaadii iigu ajirka badneed haddaba fariimaha kala duwan ee qeybaha commentiga dadku qaar isku weydaarsanayaan waxa ugu weyn ee caloosh huri waxa ahayd kuwani dad dhalay ma jiraan miya aaway waalidiintoodii waana su'aal sax ah oo is weydiiyo mudan commentiga kama akhri karaane muuqaalkaygan ayaa waalidiinta qaar gaari doonee please muuqaalka like saar siina share garay oo ugu geey qolkooda maamooyinka qaar teleefanada waa fiirsadaan waa update waqtiga la joogay hadda ka soo kacay bal maxaa dhihi karaa subax wanaagsan maan dhihi karaa habeen wanaagsan maan dhahaa maxaa bal ii sheega marka ugu horreedo gabadhii meediyaha waashay waxa ay ahayd gabadha iftiimoodana waxay meesha ku soo gashay horta magacii markii ay bedelatay model bala baxday waa markii ugu horreeyo jidku ka dhumay maalinta ka dambeeyo muuqaalo aan qurxanayn ayay isku malaysaa inay macnaha qurux badan tahay oo rag soo jiidanayso laakiin waa ay isqiimo dilaysaa inta waxaaba kaaga daranba waa la soo barbar dhigay qiimo team fara badan si u soo labisteen macnaha midda ugu roon madaxay soo daday laakiin inta kale jirkeedii waa uu muuqdaa wallahi aad baa kaga xumaanaysaa nin raga saakay ma doonayaa gabar sidaa isku qaawisay oo meediyaha taalo inuu guursado nin sharaf lahan sheega oo guur xalaal oo hooyo fiican oo ilma u dhashay ka rabo ma guursanaa may mid raba inuu 2 bilood haysto kadibna iska fasaxo iyo mid maalmo raba inuu ku meel maro oo kaliya ayaa soo raadinaya sida xaqiiqda ama kala hadlo laakiin gabdhuhu waxay isku haystaan in nimanka ugu lacagta badan ugu qiimaha badan markay jirkooda soo bandhigaan inay qaadan doonaan sidoo kalena heblaaye iska jabi ayaa dhibtay haddaba gabdhow waa isqiimo disheen maahane qiimo iskuma aadnaa yeelin waalidiinta Soomaaliyeedna hal fariin rabaan u diro midda koobaad horta haddaa dhimateen ilaahay ha idin naxariisto oo wax leedinku eedo meesha ma yaalaan laakiin adigoo nool waalidow in gabadhaadi ee sidaas meediyaha u taalo aday ka turjumay hooyo ma xumaa karto laakiin in sidaa ay noqoto hooyo ku xiran tahay hooyo u ogolaatay ku xiran tahay hooyo ogol ma jirtaa markii gabadheedu inay sidaa noqoto wallahi ma aqaan malayn maayo laakiin waa arin xaqiiqa oo u baahan in waalidiintu ay ku baraarugaan ha yareysanina gabadheeda ficiida hala meel marto waa sax ficiida hala meel marto laakiin saan dhaqan ahaan diin ahaan wax u wanaagsan ma ahan markii aan arkay gabdho sidaa isku qaawinaya wallahi aad kaga xumaadaa inaan ka aamuso waan jeclaa laakiin maalinta ka dambeeyay way sii badanay hadaan laga hadlin oo aan yani ma aflagaadeynayo oo aflagaado uma quuri laakiin waa inaa xogaa fahamsiinaa jid qaldan inay saaran yihiin way soo baraarugi karaan oo way is ogaan karaan haddaba adigu saaxiib maxaa qaybta comment ugu reebi lahayd gabdhaas iyo weliba waalidiintoodaba commentiga ra'yigaada ugu reeb habeen wanaagsan